الله ونحرستي برقدي maanta ayay geeridiisa soo jeertay fanaanka Axmed Cali Cigaal oo kamid ahaa fanaaniintii hore ee howlada qaranka ee Waaberi sanadihii la soo dhaafay ayuu Axmed Cali Cigaal waxa uu ku noolaa dalka Mareykanka waxaana la sheegay in mudooyinkii u dambeeyay uu xanuunsanaa fanaanka ka hor inta uusan geeriyoonin barqadii maanta Axmed Cali Cigaal ayaa inta badan lagu xasuustaa guwaabada heesihii wadaniga ahaa iyo kuwii jecel ee hore uu u qaaday waxa uuna ka mid ahaa fanaaniintii loogu jeclaa howladii hore ee qaranka Waaberi geeridiisa waxa xaqiijisay wasaaradda warfaafinta Soomaaliya si gaar ah wasiirka waxaana la sheegay in marxuumka oo muddo xanuunsanaa uu ku geeriyooday dalka Mareykanka halkaas oo uu ku noolaa tan iyo markii ay burburtay dawladdii dhexe ee Soomaaliya isbitaalka Amora Specialist waxa uu dalka keenay qalab casri ah oo adigoo aan qalin lagu marsin ama dawo lagu siin ayaa laga daaweynayaa hameeyirida ragga waxaan xaadir kugu ah isbitaalka dhaqaatiir PhD sidata oo 20 sano wax ka badan ka shaqeynayay cilmiga cudurrada ragga